ولو aan soo rafaadnay dadaalno soo ruxlaynay riyada laynoo rumeeyey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام والله مeel kasta adduunka ka joogtiin waxaa idin rajeynaa caafimaad iyo cimri dheer. inta caafimaad qabtana ilaahay caafimaadkooda ha u siyaadiyo, inta xanuunsana ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo, inta dhimatayna ilaahay janno firdawsi ha geeyo. aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaan dadka igu xiran oo sida fiican maaragtay kommentiyada igu soo dira. ilaahay khayr ha idin siiyo. in yaroo kooban oo wanaagsan oo macaan baad tihiin kulligiin. inta nagu cusubna soo dhawaada. magacayga waa Huda Sarmaan. maanta waxaan rabaa inaan runtii ka hadlo. ma aan jecli badana inaan ka hadlo dadka noocaan ah iyo dadka maaragtay social media maanta oo dhan cayda la fadhiya iyo wasakhnimada iyo maaragtay iyo aflagaadada iyo respect la'aanta iyo ixtiraam la'aanta ma jecli inaan ka hadlo badana. laakiin video maandhow la ii soo diray oo hadda anoo isla agaadashid Fatxiye Cabsane ay soo qaadatay jumcihii maanta mayna jumciha ay soo qaadatay ay baa runtii markaa videoga sii dhageystay ceel igu dilay. waxa waa ragga qaarkood akhlaaq iyo edeb iyo maaragtay iyo ixtiraam iyo respect iyo dhaqan xumo baa lagu soo koriyey. ma lana barin wax allaali wax la bare ma laha. leanna qof weyn oo maaragtay gar leh oo sunna ka muuqato oo ixtiraam ka muuqdo oo ka muuqdo qof human being inuu yahay, laakiin mar allaale markuu afka kala furo aad is leedahay ma toogataa bas dadkeen nagu dhex jira annaga. ninkan waa idin dhegeysiinaya wuxuu ku hadlaayo, waana iga raali ahaada, waa idiisii sheegayaa. nin aadan weligiin maqalin ama isdhehaynin nin ma ahan dayuus afkiisa waxaasaa kasoo bixi kara, ama nin Soomaaliyeed baa waxaas maaragtay afkiisa kasoo bixi karaan. oo mar hadduu afka kala qaado saas u caytamaya oo weli cad qofku caynayana qof dumar ay tahay, qofkay rabta ha noqoto, laakiin qof dumara ayuu caynaya. ninkan wuxuu caynaa waxayna weligiin maqlin. dee yacni dhegihiina hadda idiinsii sheegayaa oo idiinsii digayaa wax aniga TV kolba yacni channelkayga ana weligay kasoo daynin waayo. laakiin waxyaalaha qaarkood waxyaalo waxaa jira bilaadigsiisa bannaan markuu dhagaysto caloosha ay ku xanuunayso, una baahan in runtii laga hadlo. leanna qof dumara nin saas u caynaya, gabadhuu caynaayo waxay rabta ha noqoto, siday rabta ha noqoto. gabar nin ay isdileen oo iyaday ninkeeda is caynayaan oo social media isku haystaan oo dadkoo dhan hadda yaqaaniin, laakiin inuu saas ugu xadgudbo oo saas ugu caytamo oo yacni cayda oo caytamaya u malaysa inay toogatay ama ay asaga ka tagtay ama isaga ku daadisay. lagabana yaabay inay tuushukaasi u raadsaday ay ku daadisay marka uu ka argudanayo. you never know. leanno anigu ma arkin weligay nin saas oo caytamaya. waxaa sameynaya insha allah ila dhageysta videogan. waxa waaye wax yacni anigu haddaad ka hor aan arkay ma aha, laakiin waan kala gooyay videoga xitaa wuu dheeraa 30 second keliyaan ka soo qaatay. leanna wax videoga dhan la wada dhegeysan kara maba ahan aydu wada maqli karti, laakiin intaana baad ku argagaxaysiin insha allah. bal idinku ila dhageysto ila arka. guskiisa kula soo baxaya ee xalaal kuugu imanaya ee caruur ka dhalay halkuu joogo wad waarante. anagu nin baanu nahay oo maan dhalay baanu nahay oo Soomaali baanu ka dhalay, anaga Soomaali wada daran ugu afdheer oo hadlayna. waxa weeye maanta haddaan saa waxay tahay bari naag Soomaaliyeed oo sharaf loo reebo kale tan guursan karaa, mid kale guursan karaa, mid kale guursan afar bilaahay baniyay. ninka geedkaaga silkaaga ay dabta daran leh akhlaaqda xun leh ninka uu imanaya fuulaya ee naaqraya hadhow tolso biriq buu ahaa tabtiq buu ahaa. yacni afka juuqda gabay maqli jirteen. wallaahi afka juuqda gabay gabadhan hadda ay idin sheegayo maxay ahayd sida uu u caynayo
يعني نين يناق يجو إساستا قبر يدو نين أي كلا تجان أساقون وصافر إسا السوشيال ميديا يدون أي سوشيال ميديا صافر إساتي وعايتا مايان أديك بحق سود حقلي أديك يا كوفة صحي إن أساس قبر وعايديد يعني سو كي قال كي أي كلا تجان حتى سو مو عين يدك مارت أساقو عيناي أساق محاس جوايا I don't get it نين كان I hope wixii dhalay iyo wixii la dhashay iyo wixii isku qabiil yihiin I hope inay qabsadaan I really don't care about qabiil aniga laakiin markaan maqlo waxyaalahaas oo kaleeto oo lagu sheego ninka weli cadal gaara ninkaas qabiil hebel waaye baa la yiri caloosha ku xanuunaysa walaalayaalow aniga ixtiraamkii waa noo dhammaatay akhlaaqdii waan ka tagnay diintii waan ka tagnay garab buu leeyahay wuxuu egyahay nin يعني هداد فيريسيد قال له صلاة كم موقته يعني صلاة كم موقته يعني سنة كم موقته لكن at the same time يعني قف دمرة إنه أنت أصفر السوشيال ميديا يعني نمن ناقها يعني عايدة اسكبرو ها وساسة اللي ساس ما اللي ها لكن ننسى سو عايتما يعني disrespect iyo ixtiraam la'aanta iyo wasakhnimada iyo suu kala يعني u kala tilmaamay gabadha hoosteeda maxaa ku geeyay I don't get it maxay kaala tagtay maxay kaala carartay miyay kugu daadisay intaad la hadasho tiri igurso ama aad shukaansatay ay kugu tiri get lost I don't get it ilaa hadda ma fahansani waxa heerkaas ku gaarsiiyey oo saas ugu caytamiisid caydiina ka fiirsada oo dhaqankiina u fiirsada oo diintiina dib ugu noqda leena waxa way hadda u dhamaatay dadkii meel ay u socdaan ay meel ka socdaan midna ma garanaysid yani waad yaabaysaa wallahi si loo dhaqmay si loo la hadlan ma garanaysid dadkaas gabadhan walaashay qas loo caynayna aniga talo maandhood waxa arkay wiilal ku dhahay walaalay ka har dadkan rid ninkan iyo waxa ay tamisidna ka har aniga walaalay waxaan kugu la talin lahaa gabar walaashay ah oo Soomaali ah tahay afkaaga yaan laga maqlay cayd dambe leena waxaan oo kala saqajaankan oo kala kugu soo dabagabanay haddana balaayo kala soo xareysatay naa kale oo waxa soo xareysatay ba haddana kud ka gurmidi jirin qanjo guur kii aad caynayso wasaqi hadda ka tagay oo kala tagteen tan hadda soo xariistaa kaaga daran oo ciyaalkaaga dawladdu u dhiibi doonta oo adduunka dhan la isku haystay ma garanaysid miyaa qofta soo xariisto guriga soo gashatay walaalayaal ilmaha yarka quruxda badan leh walaali ka fiirso oo ilmaha yarka quruxda badan leh Soomaalida anaga waxaan aqaan dabeecad ina ma aragtay ilmaha aan social media soo dhigno oo sawiradood soo dhigno oo iyagu ciyaar soo dhigno ilmihiina ka ilaashada social media walaali ilmahaaga social media ka ilaasho iyo maxal dhig jiray iyo xasad iyo wax kasta iska jira ilmahaagaas beautiful ka ma sha Allah ilaahay ku siiyay oo kugu nimciyo aadkaas u qurux badan ilaahay kugu barakeeyay ilmahaaga naagtaas aad soo xariisatayna iska ceeri ilmahaagana walaali macaan ilaasho oo ilmahaaga social media ka daa isawradooda aad soo gelinaysa live-kaaga public aad soo dhigaysa already live-kaaga si kala public u soo dhigtay laakiin waxa ku waltanaya walaali inaad ma aragtay aad ilmahaaga ka saartid social media aad soo gelisay ilmaha uma fiicna inay soo galaan social media wali cad markay saas u yaryar yihiin hadday dad waaweyn yihiin iyagu oo qaan gaaray waxaa rabta la samee la sheekayso video la samee laakiin markay ilmuhu saas u yaryar yihiin ha soo dhigin ilmaha publica khayra isku ognahay dib isugu noqda ilmihiina iyo reerihiina iska ilaaliya nimankaana niman isku sheeg ah niman ma ahane waxaan dhihi lahaa I hope ina ilaahu noqotiin any minute baabawarku duqeyn karaa harata kugu dhici karaa naqaska kugu dhigi karaa hurdo aad ka soo kici doonin waxaas la iimaan
meesha uu ku murmaayo kulee naagaa i guursanaysa iyo naag baa i rabta iyo 10 naagood baan guursan karaa haddaan saa rabaan waa caytami karaa laakiin adigu ma caytami karti maxaa xaqa adigu ku siinaada saas u caytantid ayada isaas caytamin naagta ku rabtana maxay tahay adoo saas u eg oo saas u caytamaa afkaaga bulaacadda ah ee musqulaha oo kale ah do you think ina naag ku rabto ama naag ku maaragtay wax kugu falayso nin saas u caytamaaya haddayse ahayd min adiga kaa daranoo wasakhad kale ah oo duyuusad kale ah ilaan qof nin raga oo saas u caytamaya weligeed lama maqline ragnimada xaggeydii ka aaday maxaa jiil dhanoo waxa waa cajiiba hadda soo socda waa jiil cajiib ah subxaan allah ilaahay maaragtay jidka hanagu soo celiyo oo maaragtay sharaftii iyo ragnimadii iyo dhaqankii raggayga ilaahay ku soo celiyo iyo wiilasheeda yararka ah asalaamu calaykum